بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم كسو دواada Safi channel oo aan kaga hadalno arrimo faa'iido u leh bulshadeena. Maanta waxaan ka hadlaynaa arrin ayaantan aad looga hadlayay xagga telefishinada iyo joornaaladaba oo ah in biyihii dhalada ku jiray aan la cabi jiray in laga helay plastic particles dhexyaacaya. Plastic particles kaas la sheegay inay biyaha ku jiraan. dabcan isheena ma qabanayso laakiin baaritaan la sameeyay iyo qalab lagu eegay ayaa tusay in biyaha dhalada ku jira ay ku jiraan plastic. marka arrintaasna khatar ay u leedahay caafimaadka. hay'adda maxay ahayd WHO ama World Health Organization ka la yiraahdo ayaa amar ku bixisay in plasticii waaba la helay. plasticgaas damage-ka uu dadka u geysan karo bini'aadanka iyo caafimaadkiisa u geysan karo in laga daba tago oo la soo baaro. laakiin sida maxay ahayd baaritaano hore la sameeyay ilaa plastic iyo sheekadiisa laguma cusbo waa ognahay. baaritaano hore la sameeyay waxa lagu sheegay plasticka inuu sii daayo chemical dheecaan inuu ku sii dhexdaayo cuntada ama caag duuya waxaas ama bacday tahay inay dheecaan sii dayso dheecaankaas oo sumeeya wixii uu plastickaas ku jiray. marka hadda waxa la baaray dhalooyin biyo oo badan waxa u maleynayaa 259 dhalo oo biyo ah ayaa la baaray oo laga kala keenay 19 location 19 kaas location 9 wadan ka soo jeeda biyahaas kana kooban 11 brand oo kala duwan oo adduunka ah. biyayaashaas la baaray 90% waxa la arkay inuu caag dhex yaacayo tiny pieces of particles of plastic inay dhex yaacayaan ayaa la arkay. marka arrintaasna caafimaadka bini'aadanka uma fiicna. plasticka dhibaatooyinka uu keeno marka hore waxa weeyaan hormoonka wuxuu caan ku yahay hormoonkaaga inuu disturb gareeyo ama carqaladeeyo. markuu jidhka galo wuxuu isu ekeysiyaa estrogen markuu isu ekeysiyana wuxuu koos gareeyaa inuu qofkaas miisaan karo iyo inuu hormoonkiisii uu isu dheelitirmi waayo. waxa kale uu keenaa plasticka problemka uu keena kamid ah iyo caafimaad darrada uu keeno in maxay ahayd cawrada ragga iyo dumarka ama carruurta markay yaryar yihiin inuu macnihii deform gareeyo oo macnihii isbedel ku sameeyo. wuxuu keenaa premature puberty wax la yiraahdo oo ah xagga gabdhaha waliba in gabadhii iyadoo waqtigeedii qaangaadhka aan gaadhin ay qaangaadho. wuxuu keenaa obesity, miscarriage, wuxuu keenaa oo ah dilan, type 2 diabetes, prostate cancer iyo breast cancer-ka wuu kordhiyaa jaaniska uu kugu dhici karo. neurological problems uu keenaa sida ADHD-ga waxa carruuraha ku dhaca. waxyaabo badan oo caafimaad darro ah ayuu keenaa. marka plasticka problemskaas oo dhan ayuu leeyahay. problemka uu leeyahay halka laguma soo koobi karo. laakiin hadda sheekadu waxay maraysaa biyihii aan cabaynay biyihii tubadan ka cararnay oo aan nir caafimaadkeena u fiicnayn biyihii caagan u cararnay caagiina caag run ahaaba ku dhex jiro oo aan cabnaa habeen iyo maalin. marka waxaan jeclahay arrintaas inaad qofkan ogeyna uu ogaado qofkii ogna waaba og yahay sida wax uga qaban lahaydeen aad ku fakartaan oo aad wax ka qabataan oo caaga aad la dagaalantaan. caaga sida aad ula dagaalami kartaanna waxay tahay inaad maxay ahayd isticmaashaan dhalooyin aan maxay aan caag ahayn. markaad carruurta biyaha iskuulka iyo ay u qaadanayaan aad biyaha ugu shubtaan dhalooyin aan caag ahayn. dhalooyinka aan caaga ahayn waa ama ha ahaadaan maxay stainless steel ama ha ahaadaan BPA free waxa ay leeyihiin oo aan suntaas aanay ku jirin caaga lagu sameeyo because BPA-da waa sun caaga lagu xoojiyo oo sunta problemska aan ka hadlay keenta weeyaan. markaad dhalo ilmaha u iibinaysid dhalo BPA free waa inaad u iibisaa. for example markaad kafeega tagtid oo kafee cabay sidoo kale waa inaadan isticmaalin waraaqahan koobabka one time use-ka aadan isticmaalin koob runa isticmaashaa ama koobkaaga aad hore usii qaadataa. wax kastoo aad cunto ku store garaysatid oo gurigaaga yaallo oo caag waa inaad bedeshaa. weelka aad cuntada ku cuntid oo caaga waa inaad bedeshaa. toyska aad ilmahaaga ay ku ciyaaraan ha u iibin toy caag ah. caaga noocu doonaba ha ahaada caaga waa laga qayliyay toy caaga because ilmaha caaga afkay gashtaan. toy caaga ilmahaaga ha u iibinin. bacaha aad ku adeeganaysid yani bac plastic ahaanin baco reusable ah oo aan plastic ka samaysnayn iibso. carruur haddaad leedahay baby aad leedahay
ha isticmaalin bambariska maxay ahayto disposable ka ha isticmaalin bambar reusable isticmaal bambar aad dib u meydhi kartid oo aan plastic ahayn isticmaal waxyaabaha plastic ku jiro dhan oo khatarta keenaya waa inaad ka taxadirtaan oo aad ka fogaataan maxaa yeelay caafimaad darro badan ayay keenaan waxa ku soo haray biyaha plastic hadda ma aha research kan hadda soo baxay ma aha problemka plastic weligiisa plastic laga qayli jiray oo la dhigi jiray biyaha dhalooyinka ma fiicna waxaad yeeli kartaa gurigaaga filter inaad ama whole house filter wax la yiraahdo aad samaysatid oo guriga aad filter ku xidid ama aad filterada miiska la kor saaran karo yar aad soo iibsatid oo aad biyaha ku filter gareysatid biyahaaga tubada aad ka shubatay aad filter gareysatid oo gurigaaga aad ku dhex filter gareysatid maxaa yeelay caagi hadii lagu leeyahay caagada kala dhex yaacaya dee caag ma cabbi kartid hadda for example research kan la sameeyay waxaa la yiri company-ga Nestle la dhaho Nestle ay Soomaalida dhahaan Nestle brand Nestle uu leeyahay biyo ah Nestle Pure Life waa la dhahaa markii la baaray litirkiiba waxaa laga helay 10,000 oo particle oo dhex yaacaya 10,000 oo caag oo yar ayaa dhex yaacaya hal litir oo biyo ah waa qiyaasi kartaa marka caagaas xadka uu la eg yahay dhalooyinka kale aan hadda ka soo hadalnay 259 ka dhalee kale la baaray iyaga waxaa la yiri ilaa 300 iyo waxoogaa waayo wixii dhex yaacay laakiin Nestle Pure Life waxaa dhex socday la yiri 10,000 oo tiny pieces of plastic dhex booday marka videogan waxaan idinku soo diyaariyay inaad arinta plastic iyo dhalooyinka biyaha ku jira ee aan soo daldalana habeen iyo maalin aad ka taxadirtaan oo aad ka fakartaan wixii aad ku bedeli lahaydeen qof walba dooq iyo jeeb ayuu leeyahay filter yar oo over the counter ah oo nawaajiran filter guriga oo dhan lagu xirayna waa jiraan arintaas dib uga fakaro u fiiriya plasticana ka fogaada wadankeeni waa maqlay inuu farakulul ku hayo wax walba bac iyo plastic lagu shubay insha Allah iyagana inay ka waantoobaan rajaynayna videogan hadaad ka faa'iideysateen ama jeclaysateen thumbs up and subscription haddii aad maxay tahay wax comment iyo su'aal qabtaana hoos iigu soo qor anoo isku dayi doono inaan idinka soo jawaabo wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh